amniga midna waa dambiyada caadiga ah dunida ka dhaco booliiska caadiga ah salgiyada ay ka adeegayaan midna waa hanaankan argagixisaan leh hanaankan argagixisada hanaankeeda markuu soo bilaabanayo iyo buugta ay qoreen iyo say u tababartaan iyo waxa ay yihiin iyo kuwa Soomaaliya iyo waqtigay soo bilaabeen iyo sida hadda ay yihiin nin og baan ahay arrinkaasi wax looga qabto ciidamada adiga aad samaysanaysid waa inay ku jaan go'an yihiin baahida amni ee adiga aad qabtid dadka Soomaaliya dalka Soomaaliya waxa gumeeyay oo baaba'shay niman Soomaali ah laakiin aan aragti Soomaaliyeed ku shaqeynay aragti meel ay ka maalin martay adduunka aysan jirin oo shaab la yiraahdo shaabka anagu waxaan aqaanaa iyaga iyo meeshii ka soo farcamay markay soo farcamayeen waxaan wax akhrisan karay oo la socday 1979 markii midowga Soviet Afghanistan uu ku duulay oo ay ka dhasheen jihadka weynaa oo ay ka dhasheen qaacida oo ay ka dhasheen kabacdi Daesh ay ka dhaato oo shabaab ay ka dhasheen oo Boko Haram ay ka dhasheen oo qof kasta oo qori iyo isqarxin iyo qaran muslim oo meel ku yaal dumintiisa u heelan ay ka dhasheen fikradooda ma ka dharagsanahay ee ayaantooda waan aqaanaa meelay soo mareen baan aqaanaa dadka Soomaali waxa la siman inay iska dhacshaan maanta waxay taagan tahay dawladda Soomaaliya in la ilaalinayo oo ciidamada ajnabiga ilaalinayaan ciidamada ajnabiga ah cadow kale ajnabiga dibadda ka ilaalinayaan waxay ka ilaalinayaan ay ku guul dareysaan waliba ay ku guuleysan wali in cadow gudaha oo Soomaaliya laga celiyo aniga siyaasadda amniga ka leeyahay waxa waaye nimanka in aan dalka iyo dadka ka qabto oo aan ogoleysiiyo in ay noqdaan dad nabad wax ku rabo qofka Soomaaliga han siyaasadeed waa yeelan kariya xafiisyada guud madaxweynaha inta ka hooseyso qofka Soomaaliya habeenkii dhashay u furanta hadii shuruudeeda uu leeyahay laakiin waa ku dilaya saarabaan ka yeelaya dawlad kuuma ma aadan dooran ima ridi kartid qaacida la yiraahdaa shabaab la yiraahdaa Daesh la yiraahdaa buur heblan ku jira dekada wax ka qaadanaya aeroboortka wax ka qaadanaya sarkaalkan dila baawur meeysan keena waa inay istaagto shaqada ugu horeysa rabo inaan ka qabto arrinka waxay tahay ana walaalahayga gobolada iyo baarlamaanka iyo qabaa'ilkayga wato inaan nimanka waajibo amniga horta tan aan ka leeyahay taas ciidanka midka hadda joogan waa dhiirin gelinaya midka ku haboon arrinta in wax ku qabtaan waa u diyaarinaya afkaartana waan aqaanaa laba jeer baan warbaahinta ku diirnay labada jeer baan uga adkaaday wasaaradda warfaafinta markaan joogo haddana haddii ilaahay keena goobtaan tagaya dadka Soomaalida waxay ku qasban yihiin ciidankooda ku qasban yahay dawladooda ku qasban tahay inay cudud maya dhihi karto shabaab ay helaan taas waa qodobkan wuxuu u baahan yahay afkaarta iyo aragtiyada ay qabeen in laga doono intaas haddii waxa marka ay wax ka soo dabcaan waa wada hadal siyaasadeed dagaalna sidiisa wada hadal ku dhamaada wada hadalkaas siyaasadeed inay Soomaali yihiin baa laga duulaya inay han siyaasadeed yeelan karaan waa laga duulaya laakiin hadda sida ay yihiin inay duulaan yihiin oo dad in la iska dhiciyay ay tahay baa laga duulaya marka waa marxalad isdaba yaal wada hadalku waa ku jiraya wacyigelintu way ku jiraysaa duulaanka ay dirto way ku jirayaan dadka laga celiyo way ku jirayaan dadkaagu abaabulto way ku jirayaan laakiin intaas oo idil maxaa ka horeeya intaas oo waxaa ka horeeya dad isla socdo ciidan dhisto dad isla socdo cadow isku celiyo dad iskala socdo ayaa dastuur dhamaystir dad isla socdo ayaa wax ay u socdaan dawladnimada maamusha dadka horta in la isu raadiyo hadda haddii ciidamada qalab loo keeno dadka qaar ka shakina haddii dhaqaale hela qaar ka shakina haddii waxyaabo kale la sameeyo qaar ka shakina marka qaarkood waa maqlaysan dawladda ilaahay dhaqaale soo gelisaa la isku haysaa dadka Soomaalida isu raadintiisa iyo isu helintiisa ay isu helidiisa ayaa waxay u noqon kartaa albaab ama miftaax waxay u noqon kartaa in shaab laga ligaalo dagaalkaas wada hadal ku dhamaada laakiin wada hadalka waxa la galaa markii labada dhinac ay ka qanacsan yihiin in wadada wada hadalka macna wadooyin kale natiijo loo gaaray in si jir shabaab hadda sida ay yihiin kuma ay qanacsana in wada hadal wax uga maqan yihiin waa dawladda Soomaaliya hay'adaheeda way ka adeegan karaan dhibaatooyin ay gaarsiin karaan 24 saac dadkina xoolaha way ka qaadanayaan waxay u baahan tahay arrintaas in dawladda Soomaaliya hay'adaha nabadgelyada la xoojiyo oo muwaadinka Soomaaliyeed laga hoos bixiyo gacanta shabaab 24 saac hadaysa oo wax ka qaadanaysa intaas marka la helo waa in wada hadal furmo oo la wada hadlo oo wada hadal wax lagu gaaro marka dambe laakiin wada hadalka waxa waaye laba qaybood oo ka qanacsan wada hadalka in dana ugu jirto shabaab maanta u arkaan in dana ugu jirto inay ka adeegan karaan dalka ay aaminsan yihiin haddaan la iska dhicin oo dawladnimada la iska dhicin
qabiil ma ahan iyo deegaan ma ahan aan la iskaga dhicin meeshaas wax wada hadal iyo wax nadadoo ka imaanaya malaha qanaacadayda waayo aragnimadayda soo jeedkayga akhriskayga faraha badan ogaanshaha aan ogaa ururada noocaan markay aasaas waayeen aqoonta aanu leeyahay afkaarta ay ku salaysan yihiin haddii aan maya oo muuqata aanay la kulmin wada hadal uma soo jeedaan laakiin maya markay la kulmaan markaas kabacdi aa la wada hadli karaa dad Soomaaliyeed oo dowladnimo Soomaaliyeed laga hadli karay noqonaya markaas shabaab dhowr xaqiiqan ka duulayna horta waa dad Soomaaliyeed afkaarta ay wadaan iyo dowladnimo isma qabato waa inay nagula dhamaato cudud ahaan inay meesha ka baxaan muwaadiniin ahaana inay nolosha qaybaheeda oo ay geli karaan siyaasadda ay geli karaan dagaal kastana wuxuu ku dhamaadaa wada hadal uu ku dhamaada iyo nabad waxaa la rabaa shabaab marka in marka hore in la iska celiyo marka dambe lala hadlo marka saddexaadna ay ka mid noqdaan aan ka duulno inaysan hadda wada hadal naga yeelin waa markaan iska celinayn markaan la heshiinaynana wada hadal iyo miis inay ku xalisanto waa laakiin hadda ma naga aqbalayaan hadda waxaan u baahannahay in dowladda Soomaaliya iyo ciidankeeda ay maya dhihi karaan danahooda guracan ay wadaan ee dadka baadda kaga qaadayaan xoolaha kaga qaadayaan ku canshuurayaan ku dilayaan ku handadayaan